baarlamaan waa hay'adda sharci dejinta waa hay'adda ugu sarreysa institutionka dowladnimo saddex buu ka kooban yahay waa fulin iyo sharci dejin iyo garsoor waxaan u malaynayaa shantii sanaan hadda soo dhaafnay hay-adihii laba hay-adood shaqadooda hal hay-ad baa qaadatay hal hay-ad yaa waxay qaadatay laba hay-adood shaqadoodii garsoorna ma shaqaynaynin oo caqabado badan buu la kulmay baarlamaankuna waxaan odhan karaa baarlamaan ma ahayn shantii sano baarlamaankii shaqaynayay saa baarlamaanku waa hay-adda matalaysa mujtamaca soomaaliyeed ballaadhkiisa iyo dherarkiisaba baarlamaanku waa hay-addii sharciga dejinaysa ee gacanta ku haysay baarlamaanku waa marjicii loola soo noqonayo shuruucda waddanku ay ka soconayso macalasaf shadiid waxaan gallay sannado aan saa isu daba wareegeyn waxaan gallay sannado instituushanadii iyo sistamkii la dhisayay muddo maanta dib ay u noqdeen oo wixii la soo falkinaya maalintii oo dhan habeenkii dib loo furfurayo waxaan gallay sannado qabkii iyo dowladnimadii soomaaliya la sheeganaya kambeynka lagu soo galay meesha uga xumayd ay gaadhay oo maanta aan arkayna dayaca dowladnimadii soomaaliya ay lugaha la gashay waxaan gallay sannado doorashadii hal sano iyo ziyaado maanta ay dhaaftay wakhtigeedii oo weliba loo sii ciil qaba inayna doorasha dhicinba waxaan gallay sannado shabaabkii uu noqday awoodda sare ee gacanta dowladnimada waxa iyagu gacanta ku haya laakiin waxaa maanta caqabad noqotay dowladdii soomaaliyeed iyo kuwii duurka ku jiraan la dagaalamayne manhaj ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba u hadlaysnaa inaan maanta la kala garanayn qaarkood xukunkii maanta jiray oo maanta dowladnimadii iyagu ay nooga dhow yihiin idan wuxuu markaa halkaa ay noqoto maxaa kuu soo baxayo kuu oolaya waxaad moodaa kuwii beesha caalamka laftirkooda inay raxmatowsanayaan oy u nugul yihiin oo ay fiirinayaan iyagoo arka khaladka noocaas oo kale ah ma b n g baa laga wareegi ma waxaa laga wareegaya caqabad kaloo imanaysa laa nadri dowladnimadii soomaaliya maanta meesha ugu xun bay maraysaa inaana maanta askarigan iyo shabaabkii kala garanaynin oo maanta muqdisho markaad tagto qofkaad iska ilaalinaysa midka uu yahay aadan garanayn warma ka naba sugiddaad iska ilaalisaa mise kii shabaabkaa waad iska ilaalinaysaa waxaa hubaala inaan wax badan xogogaal ka nahay waxa dhacaya inaan wax badan xogogaal ka nahay oon odhan kara maanta wax badaan oo dhacayaay gacmo shabaab keliya kuma dhacayaan ee gacmo isku jiray ku dhacayaan waxaan rabaa inaan idinkula dardaarno hubaal waxaa ilaahay berri inuu idinkula xisaabtamayo hay-addani war wixii 5 sano aan soo dhaafin lagu jiray inta xildhibaanada ahaana way garanayaan qaarkood iyagoo golihii kusii socdaa dhexda laga celinayay soo runtahay maaha iyagoo baarlamaankii kusii socda oo shaqo loogu yeedhay baa la odhanayaa ma gelaysaan intiinaasi oo loo diidaya fadhigii baarlamaanka la jiifiyaano bannaantii qaadi huurshe yaan ku jirnay 5 sano ah colayskii iyo shabaab dagaalkii lagula jiray waa soo urursaday oo dowladda dhexdeeda dib ugu soo noqday waxay la tahay arrintaasi waa arrin caqabadeeda iska leh waxaad garataan mas-uuliyadda idin saara waxaad garataan dadku waxay idinka sugayaan sida madaxweyne ku-xigeenku sheegayay kuwo badan oo shalay xildhibaanaha baan maanta iyagu xataa dib u soo noqon oo macnaha waxay ka shaqaynayaan garanaya xataa damiirkoodaa siin waaya intay yimaadaan inay tartamaan iyadoo cid waxu qabtaa ayna jir hal qof aan inagu cid u diidnay ma jiro laakiin qofku isagu hadday noqoto waayo deegaanka adoo soomaaliya oo dhan baarlamaan u ah haddana xuquuqda kula jirta iyo waajibaad badan iyo at least war haddaad minxa heli iyo haddaad wuxuun yani wuxuun xataa haddaad deegaankii doorashadaadu ay ahayd wuxuun aad u qabad ilaa amaad gaari booyadoo biyaha xataa aad ugu tabarucid oo la dhaaminayo ood hay-ad iyo wuxuun u soo raadisid ood minxa kala soo shaqaysid
whatever qofkan xildhibaankii deegaan doorashadiisa inuu tago oo uu mararka qaarkood waqtiga fasaxa uu tago oo wuxuu tari karo uu taro wax badan u maro laakiin hadday noqoto ma baahnaan aragoo maalintii aan tagay baa iigu dambaysay maalinta dambe haddana 4 sano kadib baan kusoo noqonayaan haddana arkaya macno ma samaynayso marka waxay la tahay xildhibaano cidna uma maqna ceella uma qodna waddankaasi dadka uu sugaya waa dadkiinan waxa maanta ay Soomaali sugaysaa waa dadkiinan waxa Soomaali ay taariikhdeedii rabtaa inay waraway qabka laga hadlayo dadkii wax sheegay maanta halkan ku dhacay waxaan maanta gaadhnay dawladda shay intii la soo qaatay in la yiraahdo hebel la soo dilay hebel la soo yeelay halkaas dawladnimadii Soomaaliya iyo qabkii Soomaaliya halkaas maanta gaadhay waa wax ayaan darro waa wax nasiib darro waa wax u baahan xildhibaano waa inaad ogaataan hay'adda ugu sareysa ee waddanka inay baarlamaanka tahay oo maantayba sharciga marka laga hadlayo labada laamood oo kalaba waa wax idinka gacantiina ku yimaada baarlamaan baa la soo doortay dad baa soo doortay waxa kale yimaaday soo wax gacantiina kadib ku imanaya ma macdiyadu si kala qab kala ku timaadaa jir taasay ku imanaysa war sharciga dib u akhriya oo dastuurka akhriya 2016 waxyaalaha dawladii hore ku wareejinay waxay ahayd war doorashada dad baanu galay ee doorashada soo socota hal noqoto qof iyo cod ko dastuurka la dhameystiro oo dhamaystirka waxa qayb ka noqonaya arrinta Soomaaliland xal laga gaaro waxa ka mid noqonaya si doorasho qof iyo u dhacdo marka jawar baaba lagu tagayay in deegaanada maqan shabaab laga xoreeyo oo meel balla intercoopkii la sameeyo shanta qodob aan xalinaanin si aan doorasho qof iyo cod u tagno maanta maxaynu gaadhnay shalay kii lugta intuu ku tago gaariga qaata 90 kilomitir intuu socdo soo kursiga soo qaadan isla habeenkii soo noqonay maanta miyuu socon karaa magaaladii baad ogtiin hadda xamar markaad guri raadsanayso waxa lagu leeyahay jayga xagee buu ka yahay jayga ya meel jayga la yiraahdo oo garoonka ku xeeran iyo inta xalana la degaa waligay intii aan joogay tarankaas hore waxaan ku degi jiray magaalada meesha ugu dambaysa waligay staff maana qaadan afar wiil oo dhar cad ka badan labaanati kalsooni baan ku qabay magaalada aan tagay iyo mas'uuliyiinta aan joogay maantana minimum 100 qof hadaad qaadato xataa xadla kuwa filaans iyadoo waliba aad ogeydeen bilowgii hore Jubbaland aan dhisayay inaan hirig badan iyo dawladii bilowgii hore xashiq waxaan dhaxmar mareen iyadoo sidaa tahay markaan heshiiska galay Addis Ababa agreement ee xamartay hal qof oo staff maana wadin wiilal dhar cad ay la socdeen كل هذا كاميرون كدب هاللو عليه في الماضي هالقف ما أعرف كرتان عمر كان هذا أنا شيء إني وتقول وشري ترى أنا قرنين واحد نسكول إني يا واحد نسكول قبصاي وأنا شباب كي دولتي كلا قرنين وأنا لامي أملك يا كلا قرنين قاب كاس بالله عليكم أيضا قرن أو نبض سجيدة وأملك مسؤولين تقولون إسهارات إن أنت وقت سوق قريران أو فشلة madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa tareed nin hebel yiraahdo isku qarxinay ay amniga qoraya waa hay'adii sirdoonka iyo amniga waa hay'adda laga sugay in iyadu waxa qofka inta hoos u sheegtay in iyadu xal ka gaadho raadiso ceebta ka dhacday maxay ahayd kuway ku sheegayeen baa qofka xataa ma naqaan maahir waliga ma aanan maqal beera ما شهدنا مالك هذا وحشيء وحتمانا أوي دولة نودي أوي أمنو أوي وحلا هذا يعني عندي الحساب تمر هذا برلمان كان والبرلمان نبصيد الكومنديشن كود الرادينية أو هيئات دبوة فريسانية وحكينا وحين نقطة حسانات كبر لجور الرادينية مركور حسانات أنت الرادينية ما ضوى حلال كل ولاتي أنا بريء عن رواتب مركان كاتي إنه قولي هالكم كوبوكي على عند الجنات أو النبات كتشوه أو عدة مسؤوليات هالكم كايس
amnigayga ay qaado maxaa kalifaya inaan dakana intaa leegaan galo waxay la tahay shaqo badan baa idiin taalo war waddankan doorashaa xalwa waddankan doorashaa xalwa waddankan doorashaa xalwa wax kale oo xalla oo aan doorasho ahayn ma jirto anaf intaa ka badan laguma sii jiri karo waxaa hadda calaacal badan ka jira kuraas baa maqan 2 hebel baa la joojiyay 3 baa la joojiyay 6 iyo 10 kursi oo state-kana yaa wali maqan markaanu galayna 17 September waxaa ka horeysay Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 oo aan tegin maalintan 17 September saxaayay international community hadda la wada wareegaya kuraasta adiga farmaajo aan idin qaybino waxay lahaayeen waxaad samaysaa sacrifice war waddanka doorasho u baahan yahay tanaasul samee waxaan ku galay waxay ahayd 17 September marka aan saxaayay in inta ka horeyso gobolkani gacanta la soo geliyo si doorashada ay uga dhacdo yaa stakeholder-ka maanta waa gudoomiyaha baarlamaanka deegaankaas ka soo jeeda waa madaxweyne ku-xigeenka koobaad deegaankaas ka soo jeeda shalay markii ambagaati la dhisay 10 kursi ee reerkooda isaga qaybiyay maxamuud Seydaan anu ma ahayn dadkii ambagaati wax u doonta bal falsafo kale laga yaabaa inaan qabay laakiin warqadii waan hayaa maxamuud Seyd baa ninkii isagu qoray ee qaybiyay 10 kursi sida loo qaybsanayo hadda dukumeentiga yaala markuu stakeholder noqon waayo stakeholder noqonayo markaan labadan kala hadli waayo oo ay deegaanka ku joogaan kuraas ay ku matalayaan xildhibaano ay ku joogaan madaxweyne ku-xigeen iyo gudoomiye baarlamaan ay ku joogaan wasiiro intaasoo dhan ay ku joogaan shaqaalihii rayidka ahaa markay intaas noqon waayaan stakeholder yaa noqonaya stakeholder ani ma garanayo kuwa halkan joogaa maanta iyagu matalaya xildhibaankan qaadanaya anu seen odhanaya xageen geynaya waxaan diyaar u nahay free and fair election in loo sameeyo 16 kursi international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb qalo oo kursiga ugu yar hadii la doono 10 qof ku tartanto laakiin kursi aniga Axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo leeyana Cali si aan Umar qaado absolutely ma aqbalay waxaa wehelisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadho hal kursi buu ahaa shalay waxa aan diiday ee aan ku idhi haddii kursigaasi doorashada geli waayo oo markaa aan xilligaa madaxweynihii jiray la isku qaqabtay kontonka kale ha soo noqoto sababtaasaa lagu dhaariyay maalinta doorashadu dhacaysa war hal kursi baan dee 16 kursi baan ogolaadaa ha lagu celiyo waa lagu celiyey bal kuwan aan la qabanin ergada la iigu imanayo ee la leeyahay aan idin qaybino maxay ma garan kara macnahaas waxay noqonaysaa waxaan rabaa markaa barnaamijkaasi inaan u qaadano sida uu yahay waxaad matalaysaan Jubbaland waad ka tagaysaan ma matali doontaan Soomaaliya waad matalaysaan xildhibaano kale u tagaysaan laakiin oday iyo habar iyadoo jirto wixii state-ka iyo shaqada qofka deegaan doorashadiisa ku saabsan waa wax si kale uga shaqayn karo laakiin tii weyneed baa lunsan maanta aad iyo aad baad u mahadsantihiin